بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن oo wanaagsan idil ahaantiinba meel kasta dunida dacaladeeda ka joogtaan ku soo dhawaada war wixii naga soo gaaray geeyiga Soomaalida iyo daafaha caalamka oo idin akhrinayo anigoo saxardiida qodobada aad ku daawan doontaan nacaaw waxa ugu waaweyn ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo xafiiskiisa kulan kula qaatay taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed taliska AMISOM iyo guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi midowga marashaxiinta madaxtinimada Soomaaliya oo war-saxaafadeed ka soo saaray khilaafka madaxda dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir oo kormeer ku tagay mid ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho oo la filayo in dhawaan dib loo dayactiro madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Danina waxa uu xarunta madaxtooyada maamulkaasi kulan kula qaatay wafdi oo hogaaminaya ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay faahfaahinna dheeraad ah oo ka soo baxay diyaaradaha dagaalka Kenya oo duqeyn ka geystay deegaano hoos yimaada gobolka Gedo akhbaaraadka dibaddana waxa kamid ah qaramada midoobay oo sheegay in dagaaladii Syria ka socday ku dhawaad 10 sano ee la soo dhaafay ay galaafteen ku dhawaad 350,000 oo ruux arwaaxdoodii qodobadaas ayaa daawadayaal daawan doontaan u diyaar garooba warkii oo dhameystiran ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay taliyaha booliiska Soomaaliyeed taliska AMISOM iyo guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi Aadan Cali Axmed ayaa warkaasi inoo akhrinaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulan la qaatay taliyaha booliiska Soomaaliya taliska booliiska AMISOM iyo guddoonka guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi ee Soomaaliland ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa xubnahan kala hadlay fududeynta iyo amniga doorashooyinka aqalka sare ee Soomaaliland taasoo la filayo in si rasmi ah ugu bilaabato toddobaadkan taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo goobjoog ka ah kulankaasi ayaa warbaahinta la wadaagay qodobada looga hadlay kulankan u dhaxeeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo xubno ka tirsanaa guddiga amniga doorashooyinka dalka waxa laga hadlayay sida doorashooyinka loo dardargelin lahaa guud ahaan dalka iyadoo booliisku u diyaar garoobeen dhammaan dalka oo dhan doorashooyinkaasoo qaybtoodii horeena ay dhammaadeen qaybna ay dhiman yihiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay ka qaataan ugu diyaar garoobeen iyagoo waliba raacaya habraacii loo dejiyay ee madasha ay dejisay iyagoo raacaya inay u diyaar garoobeen ay warbixin ku bixiyeen laga dhageystay waxa kaloo isagana la dardargeliyay oo lagu talagalay doorashada Somaliland oo toddobaadkan ka dhacaysa magaalada Muqdisho iyadana sidii amnigeeda looga shaqeyn lahaa iyadoo iska kaashanayaan kana qayb galayaan hogaaminayaanna ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo AMISOM police oo iyagu qaabilsan sidii uu ku dhignaa nidaamka lagu heshiiyay in iyagu goobjoog ka ahaadaan waxaan rajaynaynaa markaanu eegnay diyaar garowga markaanu falaaqaynay sida ay hadda hawshu u socoto meel fiican ay maraysaa dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa gudoomiyay kulan looga hadlayay dardargelinta howlaha doorashooyinka xildhibaanada gobolada waqooyi ka soo gali doona baarlamaanka Soomaaliya doorashadaas oo la filayo in lagu qabto gudaha magaalada Muqdisho kulankan ayaa waxa ka qayb galay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee gobolada waqooyi ee Somaliland wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya taliyaha booliiska iyo guddiga farsamada xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Qadar Xariir Xuseen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka xildhibaanada gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay ahmiyadda kulankan ay la qaateen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble maanta waxa aan warbixin gaar ah ka siin doonaa insha Allah taala doorashooyinka Somaliland iyo halka ay marayaan ilaa hadda waxa si wanaagsan u socda jadwalkii doorashooyinka aqalka sare waxa uu marayaa in diiwaangelintii ay noo soo gabagabay doonto caawa odayaasha tababaradoodii maanta ay socdaan baritoorina hadaljeyntii musharaxiinta ayaa inooga furbi doona afsiyoone sidoo kale saddex cisho ku xiga talaada iyo arbaca iyo khamiisna doorashada inoo dhici doonta insha Allah nagu dhawaan sii doona jadwalka kala horeynta musharaxiinta meel fiican wax noo marayaan xagga amniga shirar badan baa noo qabsoomay waxaan wada fadhiisanay taliyaha booliiska iyo taliyaha AMISOM ra'iisul wasaaraha jeergareynayay shirka amniga sidoo kale waxa la isla qaatay in
afisyoone iyo ereyada iyo nabadgelyada guddiga iyo ergeyada iyo intaba insha Allah taala si wanaagsan ay u qabsoomi doonaan sidoo kale waxa laga hadlay doorashooyinka iyo sidii golaha shacabka hore ugu bilaabmayma sidoo kale waxa wasiirka maaliyadda iyo taliye xijaar iyo prime ministerka iyo tiimka kale sidoo kale ka wada hadleen in isagana sidoo kale arrimihii dhaqaalaha iyo dadajintoodii iyo sidii loo fulin lahaa heshiisyadii dhaqaalaha ku xusnaa habraaca taasna waa isla qaadanay dhammaantii waxaan rajeynayaa insha Allah taala in si qurux badan doorashooyinku inoogu dhammaan doonaan jadwalkiisa ugu socdaa insha Allah taala jadwalka aqalka sare markuu dhamaadana waxaan ku xijin doonaa inaan xareeno ergeydii golaha shacabka soo xuli lahaa iyagana sidaas insha Allah taala ayaan ku sii wargelinaynaa inta guddiga doorashooyinka xildhibaanada gobolada waqooyi ee Soomaaliland ayaa dhawaan soo saaray jadwalka doorashada waxaana jadwalkan ku xusnaa in doorashada ay bilaaban doonto 28 bishan oo ku beegan maalinta Khamiista ah ee soo aadan waxayna doorashadani ku eg tahay 30 bishan September ee 2021 aadan cali axmed VOS TV magaalada Muqdisho midowga murashaxiinta madaxtinimada Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray khilaafka u dhaxeeya madaxda dalka Cabdisalaam Axmed Warsame Wardheere ayaa qodoboreedkaasi inoo qaada dhigaya war-saxaafadeed maanta ay soo saareen golaha midowga musharaxiinta ayaa waxa ay ku dalbanayaan dadejinta arrimaha doorashooyinka war-saxaafadeedkan ay soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen inay garab taagan yihiin golaha wadatashiga qaran waxayna sidoo kale ay baaq u direen ra'iisul wasaare Roble ay ugu baaqeen in uusan wax gorgortan ah uusan ka gelin heshiiska 27 Maajo ee loogu idmaday gacan ku haynta amniga iyo daadihinta doorashooyinka dalka war-saxaafadeedka ay soo saareen golaha midowga musharaxiinta ayaa ka koobnaa 6 qodob waxa uu qornaa sida tan goluhu waxa uu ku dhiirigelinayaa ra'iisul wasaaraha in uu dardar geliyo hawlaha doorashooyinka gacantana ku dhigo amniga dalka marna uusan gorgortan ka gelin heshiiska 27 Maajo ee loogu igmaday gacan ku haynta amniga iyo daadihinta doorashooyinka dalka goluhu waxa uu ku boorinayaa golaha wadatashiga qaran in la dedejiyo howlaha doorashooyinka loona fududeeyo sida ugu sahlan ee ay degdega ugu qabsoomi karto lana turxan bixiyo tabashooyinka laga qabo habraaca goluhu waxa uu ku adkeynayaa in ciidanka qalabka sida aysan siyaasadda ku milmin kuna garab istaagaan golaha wadatashiga qaran sidii dalka uga dhici lahayd doorasho kana hortagaan cid kasta oo isku dayda in ay doorashada qalqalgeliso goluhu waxa uu dalbanayaa cadaalad u helista Ikraan Tahliil iyo ehelkeeda waxa uu ku baaqayaa in hay'adaha garsoorka loo daayo kiiska Ikraan Tahliil wuxuu xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidanka ku boorinayaa inay cadeeyaan caqabadaha hortaagan cadaaladda ugu dambeyntii golaha midowga musharaxiinta waxa uu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed madaxda golaha wadatashiga qaran iyo beesha caalamka in aan wadajir iskaga kaashano sidii ay dhaqso ugu qabsoomi lahayd doorashada xilligeeda ee aadka uga daahday meelna uga soo wada jeestaan shakhsiyaadka qaswadayaasha ah ee carqaladeynaya howlaha doorashooyinka Cabdisalaam Wardheere VOS TV Muqdisho madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xafiiskiisa maanta kulan kula qaatay wafdi heer caalamiya uu hogaaminayo ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ballaaran kuwaasi oo ka socday beesha caalamka waxa wafdigan hogaaminayay xogahayaha qaramada midoobay James Iswan oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya waxayna ka kala socdeen midowga Yurub midowga Afrika iyo safiirka dowladda Sweden u fadhiya Soomaaliya Deni James Iswan iyo mas'uuliyiintan kale ayaa ka faallooday arrimaha amniga gobolka doorashada guud ee Soomaaliya iyo codaynta taariikhiga ah ee Puntland ka socota mudane Deni madaxweynaha Puntland ayaa kulankaasi ku sheegay mid taariikhi ah oo ku soo beegmay xilli Puntland ay isu diyaarinayso doorashooyin dimuqraadi ah kuwaasi oo ah hal cod iyo hal qof sidoo kale James Iswan oo ah xogayaha qurumaha midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa hambalyo u diray shacabka garab taagan maamulkooda Puntland oo sidoo hadalka u dhigay kulankan waxa aad loogu tuntunsaday sidii loo iba furi lahaa siyaasad qaangaar ah dhaqangelinta kaabayaasha dhaqaalaha horumar ku dhisan ilbaxnimo iyo doorashooyin diiwaanka gala qodobadaas uu ka yahay amniga guud ee dalka ayaa kulankan looga hadlayay waxaana sidoo kale kulankan ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Garaash wasiirka wasaaradaha qorsheynta iyo arrimaha gudaha iyo sidoo kale agaasimaha guud ee madaxtooyada dowladda Puntland kulankan ayaa ku soo gabagaboobay
is-afgarad kadib saacado badan oo albaabada u xirnaayeen. waxaa runtii sharaf weyn noo ahayd maanta wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo wafdi ballaaran oo la socday oo ka kooban AU-da iyo EU-da iyo Sweden inay nagu soo booqdeen maanta Garowe. runtii wuxuu ahaa kulan muhiim ahaa oo ku soo aaday waqti ku habboon arrimaha dhammaan ka taagan Puntland oo runtii marxalad cusub oo doorashooyinkii qof iyo cod ah u dareertay iyo howlo kale oo muhiim u ahaa horumarka dhinaca dhaqaalaha iyo amnigaba. sidoo kalena xaaladda Soomaaliya iyo doorashooyinkeedii oo lagu jiro iyadana xog warays arrimaha ku saabsan ka yeelanay muddadii aan sida guud iyo sida gaar ah u wada hadlaynay. runtii waxaan isla meel dhignay waxyaabo badan oo muhiim u ahaa geedi socodka nabadda iyo dowladdiska Soomaaliya guud ahaan iyo runtii Puntland iyo mashaariicda ka socota. waxaan uga mahadcelinayaa kulanka. waxaan runtii ku faraxsanahay waxyaabihii qabsoomay sanadkii hadda lagu jiray oo hay'adaha iyo ururada deeqda bixiya ee waliba ugu horeysa EU-da iyo wadamada Sweden iyo ay ka geysteen gacanta mashaariicda socota iyo guud ahaan hay'adaha UN-ka ee halka howlgala. intaba runtii waxaan rajaynayaa inay muhiim ahayd waxyaabihii qabsoomay. sidoo kale waxaan aad xoog u saarnay sidii xal looga gaari lahaa sidii u qabsoomi lahayd doorasho ku dhacda jawi degan oo nabdoon oo laga gudbo dhammaan caqabadaha hadda hareeyay hortaagan oo caqabadaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee jira iyo kuwa farsamo runtii iyadana imaan kara ama taagan. waxaan aad u rajaynayaa in ay dalka Soomaaliya uu hore u tallaabsan doono doorashada waqtigeeda ay noqon doonto haddii Ilaahay idmo. caqabadaha jirana runtii dadka Soomaaliyeed iyagoo kaashanaya beesha caalamka ay qaybta ka yihiin ay xallin doonaan haddii Ilaahay idmo si hore loogu socdo. insha Allah waxaan rajaynayaa in isbedel dadka Soomaaliyeed ay sugayaan iyo deganaansho iyo nabad u horseeda inuu abuurmi doono haddii Ilaahay idmo. Yuusuf Saxardiid Yuusuf VOS-TV Muqdisho. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maanta kormeer ku tagay mid ka mid ah wadooyinka ku yaala magaalada Muqdisho oo la filayo in dib loo dayactiro sida uu ku soo waramay Aadan Cali Axmed. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa maanta kormeer ku tagay wadada xiriirta xarunta beerta nabadda iyo isbitaal Martiina ee magaalada Muqdisho. wadooyinkaas oo ka muuqda burbur xoogan. maamulka gobolka Banaadir ayaana dhawaan fulin doona mashruuc dib loogu dhisayo isticmaalka wadadani si ay uga faa'iideystaan bulshada iyo waliba gaadiidka. inta kormeerkan uu socday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa faray maamulada degmooyinka Xamar Jajab iyo waliba Xamar Weyne ee ka dhaxayso wadadani in ay qaataan kaalinkooda ku aadan fududeynta dhismaha wadooyinkan la filayo in lagu sameeyo. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa warbixino ka dhageystay gudoomiyaasha degmooyinka Xamar Jajab iyo waliba Xamar Weyne iyagoona gudoomiyaha la wadaagay caqabadaha jira. duqa Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa horaan ballan qaaday in maamulkiisu uu xoog saari doono dhismaha wadooyinka caasimadda si kor loogu qaado bilicda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. halku dhiga gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaana ah bulsho nabad ah iyo beled nadiif ah. Aadan Cali Axmed VOS-TV magaalada Muqdisho. weli waxaad daawanaysaan daawadayaal warka habeenimo ee telefishinka codka Soomaalida. markana faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya diyaaradaha dagaalka Kenya oo duqeyn ka geystay deegaan ka tirsan gobolka Gedo sida ay inoogu soo waramayso wariyaheena Khatre Cali Jimcaale. faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeyn dad shacab ah ay waxyeello ka soo gaartay oo xalay diyaaradaha dagaalka Kenya ka sameeyeen gobolka Gedo. duqeyntan ayaa ka dhacday miyiga degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo aan weli la tiro koobin sida laga soo xigtay dadka deegaanka. duqeymahan ka dhacay deegaanada Warbeele iyo Samaroole ee hoos taga degmada Ceelwaaq ayaa khasaare gaarsiiyeen dadka rayidka ah.
duqeymahani ka dhacay deegaanada Warboole iyo Samaroole ee hoostaga degmada Ceelwaaq ayaa khasaare gaarsiiyeen dad rayid ah inkastoo aan weli faahfaahin sugan laga helin. duqeyntan ayaa dhacday xalay waqti dambe diyaaradaha Kenya ayaana dhowr gantaal ku tuuray deegaano hoostaga degmada Ceelwaaq inkastoo ilaa haatan aan la soo sheegin waxyeelada ka dhalatay. ciidanka Kenya ayaa dhowr jeer duqeyn ka fuliyay gobolka Gado waxyeelada ugu badan waxa ay u geystaan dadka rayidka ah inkastoo xukuumadda dalka ay beeniso in duqeymaha ay sameysay ay ku waxyeeloobaan dad shacab ah. wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Puntland ayaa maanta magaalada Garowe ku qabatay shirka dib u eegista miisaaniyadda dawladda hoose ee Puntland. Cabdisalaam Axmed Wardheere ayaa inoo soo waramay. waxaa maanta magaalada Garowe laga furay shirka dib u eegista miisaaniyadda dawladaha hoose iyo qorshaha hawleedka ee sanadka 2021. daahfurka shirkan waxaa ka soo qayb galay wasiirro ka socday wasaaradaha adeeg bixiyaasha, gudoomiyaasha degmooyinka maamulka Puntland, saraakiil ka socotay bahwadaagta wasaaradda UNJPLG iyo marti sharaf kala duwan. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta maamulka Puntland Maxamed Dabanacad uu wehelinayo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha oo munaasabadan ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay in la dirdirgeliyo howlaha mashaariicda dadka maamulka Puntland looga faa'iideeyo horumarka iyo waliba adeegyada kala duwan ee ka socda maamulka Puntland. kulankan waxa muhiimadiisu weeye in dib u eegista miisaaniyadda maxaa la yiraahdaa mudaxileedkan hadda lagu jiro, laakiin waxa sidaas la mid la rabaa in la eego mashaariicda JPLG-ga hadday tahay LDF-ka waxa loo yaqaano ama mashruuca lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha sida jidadka kale ama qaybihiisa kale ee mashruucu ka kooban yahay oo kan adeeg bixinta kaleba ha noqoto oo sida hadda gudoomiyaha algabal ama dawladaha hoose oo halkan ka sheegayba la rabo in la dhiirigeliyo ama la xoojiyo daadejinta adeeg bixinta laguna wareejiyo dawladaha hoose. arrintaasi waa arrin u baahan in kor laga soo dhiraandhiriyo oo wasaaradaha inta badan ku mashquulsan inay iyagu shaqada fuliyaan laga soo daadejiyo xoogana la saaray in si dhammaystiran ay ula wareegaan degmooyinka. dhinaca kalena degmooyinka laftigooda loo diyaariyo awood ahaan iyo aqoon ahaanba mashaariicdaas hirgelintooda iyo maxaa la yiraahdaa adeega bixintiisa intaba inay u diyaarsan yihiin. sababta hadii la yiraahdo wasaaradihii laga soo dejiyo caafimaadka, adeega asaasiga caafimaadka, adeega asaasiga biyaha, adeega asaasiga waxbarashada, haddana degmooyinkii aynu wada ogsoonahay qayb ahaan inaysan awoodooda gaarsiisnayn heerkaas inay bixiyaan adeegyadaas ama dhinaca dhaqaalaha noqoto ama dhinaca khibradda iyo xirfadaha noqoto. waxa uu dhacaya waxa weeye firaaq ayaa hadhow imaanaya adeeg bixinta ku imaanaya. marka waxa la rabaa degmooyinkana oo runtii muddo dheer laga soo shaqeynaya khaasatan degmooyinka JPLG ku jira in laga shaqeeyo oo awood la saaro in aqoonta la gelinayahay ay noqoto mid laga faa'iideysto si ay u awood yeeshaan inay shaqooyinkaas hadii lahayd ma la wareegaan. dhinaca kalena waxa la rabaa siyaasadda maxaa la yiraahdaa gaarsiinta adeegyada iyo baahinta maamulka ee degmooyinka aan JPLG ku jirin ee la rabo degmooyinka laftigooda inay sareer socdaan aysan kala harin ayadana in la xoojiyo oo shirarka qaarkood hadii la haydmo xooga lagu saaro in degmooyinka laftigooda ay door ku yeeshaan wax ka bartaan waxaas ay ka baranayaan laftigooda marka ay ka shaqeeyaan sidii lagu hirgelin lahaa. waxaan kaloo rabaa inaan ka sokow ajandaha shirka inaad dib ay gudoomiyaasha iyo wasaaradda maaliyadda waa joogtaa ama ha noqdeen dadkii farsamada ama ha noqdeen mas'uuliyiintii, gudoomiyaashiina waa joogaan, wasaaradda arrimaha gudaha waa joogtaa. waxaan la wada soconaa in la diyaariyay taariifada waxa la yiraahdo ama maxaa la yiraahdaa habka lagu qaadayo canshuuraha oo degmooyinka oo aan meel marin wali oo aan gudbin sababuhu u gudbi waayana ay tahay su'aalo badan oo dhex yaala ama ha noqoto mid maxaa la yiraahdaa taariifada laftigeeda sida loo fariisiyay iyo suuqa Puntland ama ha noqoto maaliyadda laftigeeda iyo canshuuraha qaadayso iyo tan dawladaha hoose iyo isu miisaankooda. waxaa la rabaa marka oo soo jeedinaya in fursadan laftigeeda looga faa'iideysto in wasaaradaha iyo gudoomiyaasha ayagoo maraya ama degmooyinku ayagoo maraya algabal iyo hogaankiisa in loo qabto team farsamo yaqaan ama koox farsamo yaqaan oo arrinta mar kale dib u eegta dhamaystirana si looga gudbo
marxaladdan hadda aan ku jiro ee degmooyinka qayb ahaan ay isticmaalayaan taariifadii hore maaragtay aad u gabowday ama maaragtay aan maantay runtii loo isticmaali karin marxaladda lagu jiro marka waxaa la rabaa arrintaas haddii la ahaydmo in shirkan looga faa'iidaysto cidna loo xil saaro ka shaqaysa oo dhammaystidha oo dibigeysteeda dhammaystidha markaa kadibna haddii la ahaydmo maxaa la yidhaahdaa aynu hay-adihii ay qusaysay meel marin lahaa aynu u gudbinaa haddii la ahayd cabdisalaam wardheere VOS TV muqdisho warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay xiisad colaadeed oo maanta ka dhacday deegaanka xanan buure oo dhaca waqooyiga gobolka galguduud khadra cali jimcaale ayaa qodobkaasi inoo faahfaahinaysa xiisad dagaal ayaa ka taagan deegaanka xanan buure oo ka tirsan gobolka galguduud halkaasi oo dagaal xoogan uu ku dhex maray laba maleeshiya beeleed dagaal shalay gelinkii dambe soo bilowday soona gaaray ilaa xalay ayaa ka dhacay deegaanka xanan buure ee gobolka galguduud waxaana dagaalkan ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira dadka deegaanka ayaa ku soo waramaya inay dareemayaan xiisad u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed oo weli deegaanka isku hor fadhiya kuwaasi oo laga cabsi qabo inay dagaalamaan dhaqdhaqaaqan ciidan ayaa socda iyadoona aysan jirin wax waanwaana oo laga dhaxwado dhinacyada is hor fadhiya sida ay sheegeen wararka aan deegaanka ka helino duleedka deegaanka ayaa waxaa ku sugan ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya ee gorgor kuwaasi oo halkaasi u tagay inay heshiis kala dhex dhigaan beelahani balse weli kuma guuleysan arrinkan kadib markii dhinac ka mid ah maleeshiyaadka dagaalamay ay ka biyadiideen in ciidanka ay gudaha u galaan deegaanka si xal looga gaaro dagaalkan odayaasha iyo waxgaradka deegaanka ayaa horaan dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudug ugu eedeeyay in aysan dooneynin inay kala dhex galaan labada maleeshiya beeleed ee dirirtu ka dhaxayso wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo midda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa biyo dhaamin ka sameeyay degmada Diinsoor sida uu ku waramayo Aadan Cali Axmed wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda dhexe iyo tan Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta biyo dhaamin ka bilaabay degmada Diinsoor ee gobolka Bay biyo si nadiif ah oo socon doonta muddo 30 maalmood ah ayaa la gaarsiin doonaa in ka badan 1400 oo qoys oo ku nool degmada Diinsoor ee gobolka Bay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda Soomaaliya iyo midda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa iska kaashanaya biyo dhaamintani waxaana biyahani si gaar ah loo gaarsiinayaa dadka danta yar ee aan awoodin inay helaan biyo nadiif ah qaar ka mid ah dadka deegaanka ee ka faa'iideystay biyo dhaamintan ayaa ka mahadceliyay biyahan la soo gaarsiiyay hay'adda biyo ma ka codsadane garaaf iyo jilga iyo saabuun intineeshan iyo maxan nagaana biyo intineeshan booyada abaalmarinsho ilaahay aakhran ka shaqeeyo wakiilka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay mashruucan biyaha lagu gaarsiinayo qoysaska danta yar ee ku dhaqan gudaha degmada Diinsoor anigoo ah Maxamed Sabto Ibrahim oo aan u shaqeeyo district wash officer in Diinsoor waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta biyo dhaamin oo soo qabanqaabisay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka oo sii socotay ilaa iyo muddo 2 isbuuc rajaynaa in ilaa 30 ber in sii socon doonto bulshada ka faa'iideysanaysana waa 1435 qoys calaa qoysna maalin kasta waxaa loo dhaamiyaa 45 litir kulleydoo bulshadii ay u baahan yihiin biyaha in badan bulshada ka mid ah weli jaaniskaas helin biyihii weli aan la gaarsin karin sababtoo ah booydihii way yar yihiin waxaan rajaynayaa ka wasaarad ahaan in naloo soo kordhiyo waxaan ku codsanayaa taa wasaaradda Koonfur Galbeed iyo tan federaalka dawladda waxaan kale aan ku codsanaynaa bulshadii dhan waxay u baahan tahay caagagii oo kiyar kuwa qaarkood waxaad arkay inay soo gudaan haddan soo custaan sidaa darteed waxaan codsan lahaa in caagag badan iyo dhanka wash wixii ka wasaarad ahaan in la caawiyo bulshada Aadan Cali Axmed VOS TV magaalada Muqdisho maamulka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug State ayaa sheegay in qaab casri ah loo dhisayo taalada ku taala degmadaasi Dhuusamareeb sida uu warkan inoogu soo diray wariyaheena Maxamed Faracade
gudoomiyaha dhuusamareeb ahna duqa caasimadda galmudug mudane cabdiraxmaan cali maxamed geede qorow ayaa dhagax dhigay dhismaha cusub ee taalada degmada dhuusamareeb taas oo loo dhisayo hab casri ah oo ka duwan sidii hore ay ahaan jirtay dhagax dhigan ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyayaasha xaafadaha magaalada dhuusamareeb iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada gudoomiye geede qorow ayaa ka warbixiyay dhismaha taaladan agaasimiyaalka maamulka caasimadda oo xafladan ka soo qayb galay agaasimaha amniga agaasimaha maaliyadda agaasimaha arrimaha bulshada agaasimaha bilic soo celinta gudoomiyaha xaafadda hodan ee caasimadda bahda saxaafadda dhammaan ka soo qayb galayaalka xafladan salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam runtii waxaa sharaf iyo ammaan noo ah maanta inaan raamabood casriya oo caasimaddu ay yeelato aan meeshan ka dhagax dhigno raamaboodkan sidaba la og yahay hadda ka hor meesha wuu ku yaalay waxaa dhisay muddo aan dareemayo 7 sano in laga joogo xilligii aan meesha shabaabka dagaalkiisu u dhammaaday oo galmudug la aasaasayay dhalinyaro is abaabushay oo dad aqoon-yahanno ah oo qaarna xamar joogay iyo kuwa dabadda joogay iyo kuwa caasimadda joogay ayaa runtii hormuud ka ahayd dhismihiisa annagoo maamul ahaan ku gacan siinay dana ammaanteeda iyo horkaceeda iyo waxqabadkaas waxaa iska lahaay dhalinyarada oo runtii aan ka xusi karo injineer ninka la yiraahdo Yuusuf iyo Axmed Xasan oo hadda finance-ga noo jooga iyo Koofi agaasimaha hawlaha guud oo hadda shaqeeya waa mahad celinaa dhalinyaradaas iyo cid kasta ee waagaas la qayb qaadatay raabodkaas waa lagu soo meel gaaray wuxuu ku yaalay xafiiska degmada hortiisa hadda maadaama caasimadii ay dardar cusub ku socoto aad ogsoontiin horumarka ka socda iyo dhismayaalka ka socda oo kala duwan jidadka sida loo habeynaayo nabaddu say u hagaagsan tahay sidii bulshadii ay u soo laabanayso maalgashiga magaalada loogu sameynaayo aad u jeedaan saxmadda iyo dhuusmareeb meesha ay maanta marayso magaalooyinka ugu tadawurka iyo horumarka badan Soomaaliya ay ka mid tahay waxa u baahanay raamaboodkan maadaama uu yahay indhihii caasimadda in la bedelo raamabood casriya oo maaragtay caasimad raamaboodkeed la dhihi karana meesha in laga dhiso runtii waxaan rabaa in halkaan inaan ka xuso haddii Ilaahay yiraahdo raamaboodkan kaliya ma noqon karaan kuwa dambe kuwa kalena magaalada waa laga dhisaa arga la dhisaa waa ku mahadsan inaan maaragtay nabad aan wax ku dhisano iyo horumarkan iyo dawladnimadana siiyay dadka waxaan leenahay dawladnimadana nala eg ayada qof walba ku filan qof walbana gurigiisa ku gaarta ayada aan ka wada shaqeyno wixii hadda xariiq qaloocan qof ku qaloocan yahana waxaan leenahay si sax ah laga toosiyo allahana ka toosiyo marka aad iyo aad waa u mahad celinaa ka soo qayb galayaalka dhamaantood shirkadahana dhamaantood waa soo dhaweynaynaa cid kasta ee magaalada naga gacan siinaysa oo wadooyinka nala dhisaysa oo bilicda magaalada nagala shaqeynaysa gacmo furan aan ku soo dhaweynaynaa waxaan ku qori doonaa balcas oo maaragtay runtii weligeed ku qoran doonto aad u mahadsantii salaamu alaykum maxamed farcade VOS waa hagaag daawadayaal weli waxaad daawanaysaan warka habeenimo ee telefishinka codka Soomaalida oo si toos ah idinkaga imaanaya xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho markana akhbaaraadka caalamka qaramada midoobay ayaa sheegay in ku dhawaad 350,000 oo qof ay ku nafwaayeen dagaaladii Suuriya ee 10 sano u dambeysay ka socday dalkaasi warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dagaalada ku dhawaad 10 sano ka soconayay dalka Suuriya ay galaafteen nolosha ku dhawaad 350 qof oo rayid ah madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in xogta tirada dhimashada la xiriirta isku dhacyada ay ka badan tahay 350,000 oo qof waxaana xogtan ururiyay ururada bulshada rayidka ah ee dawladda Suuriya tirada ugu badan ee dilalka la diiwaan geliyay ayaa ka dhacay magaalada Xalab waxaana ku xigay magaalooyinka magaalada caasimadda ah ee Dimashq oo ay dad badan ku dhinteen iyo magaalooyinka Homs Hama iyo Tartus warbixintan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in ugu yaraan qof kamid ahi 13 qofba uu ahaa haween halka sidoo kale ku dhawaad 13 qof ee dhintayba uu ahaa midi caruur daawadayaal warkii habeenimo ee aad ka daawanayseen VOS TV intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa inteen warcaynkan oo kale aad dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa salaamu alaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.